السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأئمة الهدى من بعدهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن للناس ما نزل إليهم من ربهم بيانا كاملا شاملا في دقيق أمورهم وجليلها وظاهرها وخفيفها، حتى علمهم ما يحتاجون إليه في مآكلهم ومشاربهم ومناكحهم وملابسهم ومساكنهم، فعلمهم آداب الأكل والشرب والتخلي منهما وآداب النكاح واللباس ودخول المنازل والخروج منه، كما علمهم ما يحتاجون إليه في عبادة الله عز وجل كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، وما من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. وقال أبو ذر الغفار رضي الله عنه: لقد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. intaa ka gadaal, furfurashadatan oo aan ka soo minguuriyey online oo anigoo aan la iman kadib, sida cinwaanka maanta ku qoran ama caawa ku qoran, waxaan ka hadlayaa arrin ku saabsan caafimaadkana waxaan uga hadlayaa hab in perspective of Islamic teaching ah. sababtaan ugu magac daray 101 waxa ay tahay topical weydiistaa wuxuu ahaa topic daqiiq ah oo ku saabsan caafimaadka beerka iyo wax la mid ah. marka inta aynan gudagelin beer iyo caafimaadkiisa iyo dhibaatooyinka ku yimaada iyo arinta daqiiqiga ah ee aadka naarowga u ah, waxaan jeclaystay marka hore inaan ka wada hadalno marka hore horta doorka uu caafimaadka ku leeyahay islaamku ma wuxuu ka yiri caafimaadka oo deerkaygu kaga jira arrin aan isiri muslimiinta oo idili ama dadka luqadan ku hadlaayay aad ugu baahan yihiin. muddo aan ku howlanaa arrimaha caafimaadka ee dadka yaga ayaa waxaan kala kulmay waxyaalo runtii qariib ah oo qaarkoodna aad isleedahay islaamka oo si qaldan loo adeegsanayo. ayaa waxaan isiri marka hore bal 101 aan ka wada bilowno meel badaaya oo cid kastaaba introductory level ah oo aynu dabadeedna aynu marka ka manaaqashoono wixii kale marka uu la yimaado barnaamijka. inta aanan sheekada u gudagelin, waxaan jeclahay inaan afeef ama arar aan sameeyo oo aanan sheego who I am ani cid aanan ahayn. marka hore waxaan doonayaa inaan caddeeyo, waxaad arki doontaan anigoo isticmaalaya aayaad quraani ah ama axaadiis nabawi ah. taa macnaheedu ma aha inaan ahay sheekh ama qof aqoon u leh oo durugsan oo loo qaadan karayo hadalka uu yidhi oo waxaan u taaganahay in la isaxo, maadaama aayaadka iyo axaadiista iyo waxa ay geeya keliya waxay tahay inaan muhiimadda iyo mowqifka aan doonayo inaan ku caddeeyo aan u adeegsado. marka religious scholar maahi oo hadalkaygaasi waxa weeyaan su'aalo badan baa ka imaan karaya, waana lagu sixi karayaa in the middle of the discussion iyo kadibba. waxaan kaloo doonayaa inaan caddeeyo inaanan ahayn medical doctor. waxaad arki doontaan anigoo ka hadlaya caafimaad daqiiqi ah ama ka hadlaya cudur iyo sida uu ku yimaado ama dawooyin ka hadlaya. taa macnaheeda ma ahan inay iga dhigayso inaan dhakhtar ahay oo dadka daweeya oo daawo qora. arrintaa halkan ka idhaahdan looma qaadan karayo inaan oo dawada looma qaadan karayo. taana waxay iga tahay
waxaan halkan ka oranayo ma inaan ahayn nin dhakhtar ah loo soo tababaray maxaa la dhihi jiray physician oo medical doctor ma ahi inta ka gadaal laakiin se waxaa jirta xirfad kale oo aan gaar u leeyahay oo ah inaan ahay global health professional xirfad cusub oo ka tirsan maxaan ku radaa public health-ga ama caafimaadka ijtimaaciga ama caafimaadka guud ama fayadhowrka guud gaar ahaanna waxaan takhasuskaygu ahaa waxyaalaha khatarta ah ee maxaan ku radaa social cultural determinants waxa loo yaqaano of refugees and immigrant health social cultural determinants waxyaalaha bulshaawiga ama dhaqanka uu wato ama diin ha ahaato ama ha ahaato maxaa la dhihi jiray uu dhaqanku wato ee dadka qaxootiyada ah ee wadamada soo galay iyo maxaa la dhihi jiray immigrant-uga ay gaar ahaan ula yimaadeen ayaa maxaa la dhihi jiray xiisaha ama area of my interest ay ahayd sanadihii ugu dambeeyaba taasoo keentay ama aan doonayay inaan idinkala sheergareeyo wax badan oo aan ka bartay oo aanan hore uga ogeyn dhaqankayga xitaa marka arinta aan doonayay inaan halkan ku soo bandhigo caawa waxa ugu horeysa marka hore inaan ka hadlo public health-ga caafimaadka guud ee dadka muslimiinta ee ku dhaqan King County area sida uu yahay anigoo markaa targetkaygu yahay dadka Soomaaliyeed ama luqadan ku hadlo dadka ku hadla caafimaadkooda sida uu yahay dabadeedna waxaan doonayaa inaan idin soo bandhigo principles of health anigoo markaa manduurkaygu yahay ama aragtida aan ka qaadanaya caafimaadka il gaara ku eegaya islaamka waxa uu ka qabo islamic perspective of health iyo muhiimadda caafimaadka islaamka uu dhigay maxaa ku islaamka halkee uu caafimaadku ka taagan yahay waa maxay islaamku ma ka hadlay hadduu ka hadla saxagee uu ka taagan yahay ma priority ama maxaa ku radaa ma levelka xagga dambe kaga jira mise safka hore kaga jira baanu idina baari doonaa dabadeedna waqti hadduu alla idmo waxaynu soo heli doonaa oo question and answer time oo su'aalihii jawaabaha hadduu waqtiga inoo saamaxo marka ugu horeysa xaaladda caafimaad ee dadka ku dhaqan gayigan ee King County-ga haddaan ka soo tagno Washington oo dhan ma koobi karayno haddaan Washington maxaa King County aan ka soo qaadano oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 1.9 million dad ku dhow ilaa 2 milyan qof baa ku nool dadka muslimiinta ama haddaan idhaahdo dadka Soomaaliga ah ee ku dhaqanin maxaan ku dhahdaa runtii marka numberka la fiiriyo wuxuu noqonayaa tiro aad iyo aad u yar haddaad fiirisid waddanka Mareykanka oo 320 ama 15 ay ku nool yihiin oo milyan dadka muslimiintana 6 ilaa 10 milyan baa lagu qiyaasaha qaarkood taasoo ka dhigaysa percentage aad u yar markaan u soo daadego King County-gana dadka iyagu maxaan ku radaa aad iyo aad bay u yar yihiin marka loo fiiriyo numberka guud ee dadweynaha ay ku dhex nool yihiin ee isugu jira cadaan iyo minority kale oo iyana ka badan oo African American iyo ay ku jiraan Asian iyo maxaan ku radaa iyo Latino-ba guud ahaan waxay ka wada siman yihiin duulkaas oo dhan ee minority-ga loo yaqaano waxa loo yaqaano disparity jirta ama inequality ka jirta xagga caafimaadka dadka minority-ga waynu ku jirnaa anagu marka loo fiiriyo dadka kale ee wadanka loogu yimid ama wadan kale caadaanka ah waxa weeyaan proportionality inta aynu ka nahay wax ka badan baa caafimaad daradaydu ay tahay oo macnaha xagga caafimaad darada ayuu kaga dheereynay qayb kasta loo eego oo wax cusub ama maxaa kale wax qarsoon ma aha waa wax la wada og yahay dawladda iyo cid kastaaba ay og tahay waa way jirta aan la danayn jirin oo ay maxaa ku raada qof kastaaba uu iska ahaa caafimaadku qof kasta waa personal responsibility qofka isaga is caafimaadsan karayn karaya ama isaga iska dhigi kara qof healthy ama qofka isaga maxaa ku raada cudur isku ridi karaya ta mar la qabay waa jirtay laakiin sanadihii ugu dambeeyay 20 sano ugu dambeeyay markii la bogi waayay sheekada oo waxa la yiri arinta systemka ah ee dadka ay ku dhex nool yihiin baa qayb ka ah caafimaad darada ay ku jiraan baa waxa ay noqotay marka dadka yagii ee muslimiinta ah ama Soomaalida gaar ahaaneed oo yimid wadan ayagoo caafimaad qaba hadduu qofku qaxootinimo ku yimid ama hadduu ku yimid immigrant wuxuu soo maray process dheer si uu markuu ugu liitaba haddii uu maro wuxuu qaadanaya green card waa inuu caafimaad maraa marka qofka marka uu soo gelayo at the entrance ama maxaa ka upon arrival waxa weeyaan waa qof aad iyo aad u caafimaad qaba laakiin muddo yar ka gadaal 10 ilaa 20 sano gudahood baa waxa dhacaysa dadkii in ay xanuuno iyo acculturation waxay yiraahdaan ay la soo dirsaan taasoo dhinacyo badan ka imaanaysa
systemka ay ku nool yihiin iyo ayaguba xitaa qayb ay ka yihiin arinta aan danaynayna waa tan shakhsiga ah ee family level iyo individual level ka ah ee qofka dhaqankiisa iyo wuxuu aaminsan yahay iyo sida uu dhaqmaa qaybta ay ku leedahay caafimaadka weeyaan pointiga aan doonayo inaan caaway aadka u xoog saaro tusaale ahaan marka uu soo qaadatay King County-ga health profile-ka kan cudurka kansarka marka soo qaadatay dadka iyaga marka gaar ahaan Soomaaliyeed marka la fiiriyo qaybta aynu ka nahay iyo inta looga baahnaa sheerkayga in nooga soo hagaagto xadaaf weeyaan inta nooga soo hagaagtay oo kansarka iyagu waa ka badan yahay marka loo compare gareeyo kansarka caadiga ah aynu u lahayn portionkeena haddii la qaybinayo si cadaalad wax loo qaybinayo marka cadaalad daradaasi way jirtaa waxa kale oo jirta wadna xanuunkiiba ummadii Soomaaliyeed ama muslimiintii gabi ahaanba iyana maxaan ku radaa xadkoodii bay ka qaateen taasoo macnaheedu yahay hadday ahaan lahayd waxa loo yaqaano waxyaalaha keenay cholesterol-ka iyo maxaa la dhihi jiray dhammaan waxa uu horseeday qofka inuu wadna xanuun ku dhaco dhammaantoodna qaybta iyadoo ka qaadanay oo runtii ka badan intaan caadiga u lahayn oo feerka ahayd haddii la fiiriyo accidentiga sida dhaawacyada ama dhimashada nooga soo gaaraysa accidentiga hadduu ahaan lahaa car accident hadduu ahaan lahaa accidentada kale ee loo yaqaano unintentional accidents oo ah sida drowning-ka qof dabaalinaya oo badda ku quusa iyo baliyada ku quusa qaybtii nooga soo hagaagta runtii way ka badan tahay intaynu haddii wax la qaybanayo cadaalad loo qaybanayo aan u lahayn marka kansarkii waa ku badsanay wadna xanuunkii accidentigii kaadi sokortii iyo cudurkan beerka ku dhacay chronic liver disease loo yaqaan ee beer xanuunka maalin kasta dadka iyagu dhimanayaan ee ay kuwana ku sii socdaan aysan cidina ka warqabin maxaan ku raacnaa u maqlayn taas oo kale marka qaybtii ay ka qaateen runtii iyana waa xadaaf oo runtii looma dul qaadan karayo infectious disease marka su'aalo soo qaadatid oo kale cudurrada la kala qaado ee AIDS-ka uu kamid yahay iyo kuwa kale oo badan ay kamid yihiin iyana aad iyo aad bay dadka iyagu maxaa kala qaybtooda uga qaateen oo xagga xumaanta ah taasoo dhan iyo kuwa kale waxay keenaysaa marka noloshii aynu loonaan lahayn ee hadday ahaan lahayd quality of life daryeelkii aynu u baahnayn iyo wixii oo dhan maxaa ku raadin in dadka iyagu aanu ka liidno dadka ummadna la midka ahayd ee wadanka geeyiga naguna nool life expectancy-geena ama intii qadarka aynu u lahayn inaan noolaanaa waxay noqonaysaa marka in aynu ka soo horumarno sida caadiga ee public health-ga wax u arkaan marka waxa kale oo jirta iyana hadday noqon lahayd prevention activities-ka oo cudurrada in maxaan ku radaa laga hortago ama la isdaweeyo ama hore loo sii maxaan ku radaa waxaas oo dhan ama xitaa dhibaatada naga haysta cisbitaalada hadday noqon lahayd women health oo kale dhalidii oo kale caruurtii caafimaadkoodii oo kale cudurtii iyo mental health-gooda waxaas oo dhan dadka iyaga waxay noqdeen number ka badan numberkii ay xaadiga u lahaayeen haddii wax kastaba sidoodii ahaan lahaayeen marka cadaalad daradaasi iyo unfair iyo inequality-gaasi ayaa wadanka ka jira oo aynu qaybna ka nahay oo annaguna qaybtayda aynu ka qaadano marka qaybta aniga caawa systemka intaan la gaarin iyo dawladda iyo nidaamkan dhisan ee maxaa la dhihi jiray aanu u nimid inta aanan ka hadlin waxaan doonayaa horta qaybta inagu shakhsiyan jahligeenna iyo dhaqankayaga qaybta uu ku leeyahay si loo fahmo taawiyata aan doonaya inaan runtii dadku ay caaway halkan ka qaataan waxaasoo dhan waxay horseedaysaa kelmadda ah Allah subhanahu wa ta'ala uu yiri wardad yahow naftiina halaagina oo waxaan arkayo mararka qaarkood dadku waxa weeyaan waa halaagid nafta la halaagayo tusaale ahaan waxaad arkaysaa qof gacantiisa iyo dhaqankiisa ku halaagsamaya oo cunnada uu cunayo darteed iyo sida uu dhaqmayo darteed oo la og yahay lana garanayo inay ka dhalanayso maxaa ku raada dhibaato iyo caafimaad darro ayuu qofkii uusan dhegna cidna jala qusiinayn uusan dhageysanayn dabadeedna isagoo oranaya waxa kan haddii alla ii qadarna way ugu dhacayaan waa markaasi waxaan u arkayaa arinta Allah subhanahu wa ta'ala uu hore noogu sheegay nabigeena soo gaarsiiyay aaminsanahay halaag la halaagayo naftayada ee Allahna uu nagu la dardaarmayo in aynu nafteena u ihsaan falnaa naftayada inaan u ihsaan falno oo aynu u turno oo ay waxa danteeda ku jirto caafimaadkeedu ku jiro in aynu ka fikirno way haboon tahay intay goor tahay Allahna waa jecel yahay kuwa naftooda u tura ee u ihsaan sameeya alla waa jecel yahay marka take charge of your health taas ay sheekadana isugu soo dhursanaysa oo war qof yow cid kale haba u danayn naftaada keliyata u daneeyo maxaa la dhihi jiray wixii naftaada ku badbaadayso ka dadaalo maxaa ku sameen waa maxay caafimaad
عافمات كان كهلا يا محوية ورتدي سبا أي نسلا رجنا عافمات كان كهلا يوم عاديا dadku binaadamka waxay soo mareen waqti oo qofku iska nool yahay dabadeedna maalinta uu bukoodo ayuu wuxuu oranayaa caafimaadkii waa tagay waan xanuunsanayaa oo marka labadaasi waxay traditional the absence of disease cudurka markuu ka maqan yahay oo aadan xanuunsanayn baad caafimaad qabtaa marka aad cudurku ka maqan waa caafimaad qabtaa markuu cudurku la joogana waa saas oo kale adiga waxa cudurkii oo maqnaanshihiisa caafimaadka loo yaqaan waa xayahayd qeexitaan hore oo dadka soo wada martay dadka yasa weli ay saa u arkaan taa waxa u daliila qofka isagoo aan caafimaad lahayn buu isu arkaa maadaama cudurkii dhulka dhigi lahaa sariirta saari lahaa cusbitaalka geyn lahaa uu maqan yahay dabadeedna qofka category uu ku jira isagoo isu arkaa waxay tahay inuu caafimaad buuxa qabo laakiin mid aan ka hadlayo aan doonay dadku inay u baraarugaan waxa weeyaan waxaan uga hadlayaa caafimaadka as a holistic approach hab guud ahaaneed oo aysan ahayn cudur maqnaanshihii keliya cudur uu maqnaan karaya oo aad caafimaad qabi karaysaa laakiin waxyaalo badan oo waxa jira caafimaadka kaaba oo ay ku jiraan familka oo ay ku jiraan socialka oo ay ku jiraan maskaxda oo ay ku jiraan maxaa deegaanka aad ku nooshahay waxaas iyo kuwa badan oo dimension fara badan oo laga fiiriyo oo qofka inay isugu dibadhacsan yihiin intaas oo dhan ayuu qofka caafimaad buuxa heli karaya taa weeyaan ta aan doonay in dadku ay ila fahmaan marka aan ka gudbo qeexitaanka caafimaadka marka qeexida hadda aan anagu saarayno ee current definitionka caafimaadka waxay tahay hay'adda caafimaadka iyo cid kastaaba ay maxaa islamic perspective-na waxay tahay waa xaalad isbedbedelaysa oo qofka u soo maraysa taasoo leh caqiidiyan spiritual health physical health social health emotional mental environmental waxyaalo badan bay maxaa karada qofka waxa dhici karaysa inuu jirkiisa uu caafimaad qabo oo uu maxaa karada boodboodi karayo socon karayo laakiin se maxaa la dhihi jiray emotionally iyo mentally maskaxiyan uusan u fdiganayn dareenkiisa dhibaatooyin social ahaan haysta qoyska ka haysta deegaanka ka haysta marka caafimaadka waxa weeyaan intaasoo idile oo ku wada saxnaata ayaa maxaa ku caafimaadku noqonaya marka waxay noqonaysaa hadii intaas oo dhan aysan isla shaqeyn oo qofka tusaalahan in islamic perspective waxay noqonaysaa qofka aanan caqiido wanaagsan lahayn oo Allah subhanahu wa ta'ala aan aaminin physical health wuxuu sheegayo laakiin marka qofka uu iimaanka helo oo caafimaad maxaan ku raadaa uu niyad iyo maxaan ku raadaa caqiidiyan u dhisan yahay then physical health iyo socially emotionally mentally environmentally wixii kala soo raaco markaas ay israacayaan laakiin qofka hadii uu in reverse uu ka dhigo oo sida uu maxaan ku raadaa physically iyo waxa soo dhan ay maxaan ku raadaa bilcagsi u shaqeeyaan oo wixii looga baahnaa inuu hore u qaado dib u qaado then waxay noqonaysaa qofka isaga naftiisa inuu dib u rido oo dabadeedna uu wixii ka soo baxa markaa isaga مسؤوليته قاطو marka picture-ka noocan oo kala wuxuu ii sheegayaa in waxaan ku radaa xaaladan continuum-ka ah ee socota marba qofka xaaladu wuxuu marayaa low level ah oo qofka intellectually inuu maxaan ku radaa emotionally ka dabadeedna uu maxaan ku radaa meelka ugu heerka ugu sareysa ee maxaa la jira high level of wellness wax loo yaqaan qofka jirkiisa inuu caafimaad qabo maskaxdiisa inuu caafimaad qabto dareenkiisa familkiisa environment uu guriga wixii oo dhan inay maxaan ku raad isla shaqeeyaan oo kulli wada hagaagsan yihiin qofku waxay noqonaysaa marka inuu wada leeyahay the highest level taasoo keenaysa waxa loo yaqaan wellness ama se qofku waxa dhici karaysa inuu jirkiisa marka saacadan uu joogo wanaagsan yahay laakiin emotional qofkii aanu deganayn qofka emotionally dareen ahaan iyo maskax ahaanba qofkii aanu degayn oo hawlo kale ku furan yihiin ama waxyaalo kale maxaan ku raadaa caqabada ay jiraan taasoo u baahan marka qofkii in laga daweeyo marka waxaan isku soo duubo waxaan uga jeedaa all dimensionka ama qeybaha dhammaan ee sameeya kaaba maxaan ku raadaa inuu qofka uu helo 100% caafimaad dhameystiran waxay noqonaysaa in waxa soo dhan ay wada shaqeeyaan si uu qofka u helo 100% waxa loo yaqaan wellness oo ah fayoobid heerkii ugu sareysay ama caafimaad heerkii ugu sareeyay oo ah the highest level of health possible in each of several health dimensions qeybaha aan soo sheegay qofka bay'adii uu ku noolaa badankiisii jirkiisii maskaxiyanba wixii oo dhan maxaan ku raadin spiritual oo caqiidiyan wixii dhan qofka markay u wada hagaagaan ayuu wuxuu noqonayaa qofka the highest of happiness iyo caafimaad inuu helo marka taa dabadeed islaamku
رأيه كقبا من منظور الإسلام كمحوية عافماتك سيدابو عافماتك إسلام كواركي نبينا عليه الصلاة والسلام مركو ينسو قارسين يفرينتي الله سبحانه وتعالى إنه قصوا قاضي ما وحي هاي فرين عبادي iyo ku saabsan kaliyato mise waxa la socotay caafimaadkuna waa laga hadlay oo nabigu iyo wax kasta maxaa kale nabigeena calaysay salaam sida iftitaaxiga ka muuqatay shimbir doosha ma jirto talaabo kasta oo la qaadaa ma jirto ilaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay in kasta oo islaamka ama kitaabka quraanka iyo axaadiistu aysan ahayn maxaa la dhihi jiray protocol oo experimental ama maxaa kale si toos ah usan ahayn oo dictionary medicine usan ahayn laakiin at the same time waxa weeyaan waa meeshii guideline-ka laga qaadan lahaa oo ku tusi lahaa bidhaantii aad adigu wax ku furan lahayd maadaama Allah subhanahu wa ta'ala uu abuuray bini aadan awood u leh inuu daahfuro waxyaalo badan oo maxaa kale islaamku xambaarsan yahay islaamku markii uu ka hadlayay caafimaadka wuxuu sheegay inuu yahay nimco Allah subhanahu wa ta'ala uu umada u soo diray taasoo nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ka hadlay wuxuu yiri qofna lama siin iimaanka ka gadaal wax ka wanaagsan caafimaad oo marka caafimaadku wuxuu noqonayaa darajada labaad ee qofka Allah subhanahu wa ta'ala ku munaysto marka hore al-yaqiin al-iimaan al-islaam qofka markuu iimaanka helo oo Allah subhanahu wa ta'ala ilaahiga abuurtay uu gartaa deen waxay noqonaysaa marka arintii loo baahnaa ee Allah subhanahu wa ta'ala uu ku caabudi lahaa waa inuu qofka helaa jir awooda maskax awooda inay wax qabataa oo adoonnimadii loogu talagalay inay qabato ay samaysaa marka haddii arintu sidaa tahay marka islaamku marka Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu gaarsiiyay mansilada aadka u heer sarreysay ee ah waa the greatest blessing after belief waa nimco ama barako ama blessing oo gift Allah subhanahu wa ta'ala uu bixiyo waa ta ku xigta iimaanka ka gadaal haddii aad fiirisid oo dadka iyaguba mahmaahay iyo hal xiraalay iyo waxyaalo badan oo nileenahay oo ah in caafimaadka wax la dhaafsan karayo aysan jirin waxaan tusaale ahaan usoo qaatay nin Gandhi ay yiraahdaan oo mar uu ka hadlayay uu yiri war hantida iyo qannimada la sheegayaba ma ahan dahab iyo qadaadiic iyo silver iyo dollar la dhaxlo ama la haysto ma ahane waxa weeyaan qofka inuu helo caafimaad qofka uu helaa wax u dhaafsan karaya ma jirto marka caafimaadka noocaas oo kala ah inuu kugu dhaafo dabeecado xun iyo waxyaalo yar iyo jahli oo dadka iyaga qaarkii ay sameeyaan oo in gadaal dambe ka ogaan doono runtii ma mudna caafimaadka in sidaa uu ku dambeeya waa darajada ugu labaad ee iimaanka ku xigta Allah subhanahu wa ta'ala markuu ku galaystay inaad islaam noqotaay nabigeena calayhi salaam wuxuu ku caribay oo uu sheegay dhowr jeer war qofkay u caafimaad qabto jirkiisa uu caafimaad qabo oo maxaan ku raahdaa familkiisa ama deegaanka uu ku nool yahay ay u aamin yihiin oo heli karaya wuxuu cuno maalintaasi iyo nolol maalmeedkiisina haysta wax adduunyo ka dhiman ma jiraan saas oo kala waxa dareemaysaa islaamka sida uga hadlayo caafimaadka ma ahan kaliya maxaan ku qofkii badbaado qaba jirkiisa uu badbaado qaba kaliya tama war qofkii jirkiisa uu caafimaad qabo oo maskaxdiisa uu caafimaad ku arki doonaa waa qofkii familkiisa deegaankiisa noloshiisa heli karaya ee waxa dhan ay maxaan ku isku daboolan karaa Allah subhanahu wa ta'ala inta u sahlo wax uu dhaafsan karaya maxaan ku raahdaa waa heerkii darajada ugu sarreysay buu ku jiraa sida diinta inoo sheegaysa nabigeena calayhi salaatu wasalaam nin reer baadiye maalin u yimid baa la yiri markaasuu ninkii wuxuu weydiiyay warnay nabiga waxaad ii sheegtaa maxaa Allah subhanahu wa ta'ala weydiistaa markaan salaadaha maxaan ku shan salaadood markaan tukado maxaan weydiistaa Allah subhanahu wa ta'ala markaasuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu sheegay wuxuu yiri Allah waxaad weydiisataa caafimaad ninkii way ku filaan weeday wuxuu yiri caafimaad weydiisasho kaliya iguma filaan maxaan ku wuxuu doonay wax kale oo gaar ahaan loogu sheego oo special ah uu soo noqday baa la yiri mar labaad haddana mar saddexaad uu soo noqday nabigu uu weydiiyay wuxuu yiri maxaan weydiistaa salaadaha markaan tukado waxaan doonayaa duco ii gaar ah oo weydiista maxaan weydiistaa Allah subhanahu wa ta'ala nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi fi dunya wal aakhirah وروحد ويدستا الله سبحانه وتعالى عافمات إنه الدنيا آخرة بقصية وأدور سوناتد وأدونك سناتد وأدين شاء محايا العافمات سكة نقوم كرياوت معناها الدنيا هذا عافمات قبتها ومستحضر هذا يجير يوحى قدرنا السوق كدحسيهن توحد أود كريس ربي وكابورتنا سوى نكسن وعابدا آخرنا هدي أي واحد أدوك كوه جاجان هذا واحد نقول يسا وحكوسي صعود آخرنا أد محاك أساس الأول جالسا marka waxa kale oo jira nabiga waxa ka dareemaysa waxyaalaha uu sameeyay jiray diintu ina sheegtay oo ah
in aanu afka ka qaadi jirin oo u badsan jiray mar kasta inuu rabbigiisa weydiisto inuu caafimaad siiyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam isaga dayasho wanaagsan leh oo in lagu daydaa ah oo Allah subhanahu wa ta'ala uu caafimaad buuxa siiyo at the same time waxa dhacaysa inuu mar kastaaba Allah subhanahu wa ta'ala uu baryayo oo Allah subhanahu wa ta'ala caafimaad u weydiisanayo oo waxa uu ku baryanay kamid ahaayeen in Allah subhanahu wa ta'ala iimaanka uu wanaajiyo uu dhowro iimaankiisa waxaan ka hadlaynaa spiritual health iimaanku wuxuu ka hadlayaa inuu Allah subhanahu wa ta'ala akhlaaqdiisa iyo maxaa kale badankiisa iyo waxa uu hagaajiyo inuu caafimaad siiyo iyo dambi dhaaf uu siiyo iraal lahaanshiyo wuxuu barayaa in Allah subhanahu wa ta'ala adduunkiisa iyo aakhiradiisa maxaa kale sida uu ku wanaajiyo wuxuu weydiisanayaa mar kastaaba in ehelkiisa maalkiisa inuu maxaa kale Allah subhanahu u dhowro waxa soo dhan waxay mudan yihiin wax lagu daydaa maxaa yeelay ficil ahaan buu u sameeyaa wuxuu sameeyay waxay tahay waxa weeye qofka action ahaan buu la iimaanaya subax kastaaba waa wax uu higsanayo waa plan uu leeyahay waa qorshe uu ku talagalayo inuu maxaa ku Allahna ka baryo ficilkeeda inuu la yimaado marka caafimaadku waa wax noocaas oo kale Allah subhanahu wa ta'ala ee diinteenu aad bay uga hadashay oo maxaa la jiray wax qarsoon oo maxaa ku radaa iska qarsoon ma aha taas keenaysa in subax kasto daa'ima iyo galab kasto maxaa kala gabal dhacba in nabigeena calayhi salaam sida uu markasta weydiisanayo uu leeyahay ilaahayow caafimaad adduuniya aakhiro ilaahayow caafimaad adduuniya aakhiro saasoo kale maalkayga ehelkayga ilaahayow maxaa kala reerkayga iyo waxa soo dhan arkaysan maxaa kala Allahumma ihfidni min bayni yadayya wa min qalbi wa an yamini wa an shimali wa an min fawqi wa a'udhu bika bi'azamatika an aqtala min tahti waxa soo dhan waxay noo sheegayaan oo culimada ay noo sharaxeen mar kastaaba oo ina ka maqan la in nabigeena calayhi salaatu wasalaam aanu har iyo galabba subax kasta waa bari kasta galab kasta aanu saafkiisa ka qaadin oo ficilkeedana la iimaanay oo marka heerkaas uu maxaa la jiray caafimaadka uu islaamku ka taagan yahay mararka qaar kood markaad fiirsay waxa masaa'ishan iyo maxaa ka axaadiistan oo kale waxa leedahay war xagee dadka ka qabteen dadkan isku dayeenay sunnadii ay sida ugu dhaqmaan haddana maxay xagee aadeen wax kan waxa islaamku inoo sheego kale bini aadamku inuu imtixaan yahay oo dadku aysan abasheed gareyn waxaas dhan la sheegaya ee caafimaadka darajada ah ee haddana maxaa la dhihi jiray dadku inayba sidaa yihiin oo dad aan ka faa'iideysanayn oo haddana meel ka dhac u geysanaya caafimaadkii sababtuna waxay tahay sida xadiiska aad wada taqaanaan ee ah laba faa'iido oo waaweyn oo laba nimco Allah subhanahu wa ta'ala nasiiyay caafimaadka iyo firaaqadaba waa laba nimco oo nimcooyinka Allah subhanahu wa ta'ala kamida haddana dadku ay sababa faa'iideysan oo ay dadku ku kaashoomaan oo ayba maxaa ka meel uga dhacaan marka qaarkood waa talayaab kale marka wayna dhacday waqtigii hore haddana way dhacaysaa caafimaad buu Allah subhanahu wa ta'ala ku siinaya uguma faa'iideysanay sida Allah subhanahu wa ta'ala uu kugu talagalay marka laga hadlayo cibaado waa gooni at the same time xitaa noloshaada inaad noolaataa inaad jirtaa inaad nolol iyo ilmo jira aad adduunka la timaada waxyaalo badan waxay u baahanaysaa in caafimaadka qofka uu markaa uu waajoobo oo qofku dadka qaarkood ay maxaa ku raadaan arinta u baraarugaan waa maqbuulun fiihima kathiirun min dad badan ba kam maxal li jiray Bukhari baan warinaya marka arintan sheegaya ee aan rabo inaan cadeeyo waxay tahay caafimaadka waa wax amaana ah ee Allah subhanahu wa ta'ala uu nagu galladaystay oo amaana inuu maxaan ku raadsiiyay marka qofka inuu ilaaliyo caafimaadkiisa inuu dhowro waa dhowrid aad dooraysa amaanada Allah subhanahu wa ta'ala uu kugu maxaan ku raadsaa amaanaystay waa amaanada sida uga soo bixi lahayd weeyaan inaad good healthigaaga aad keep garaysid ay in Islamic perspective ay tahay marka waxa kale oo jirta haddana caafimaadku cayaar ma ahan haddana ma aha sida loo madan waxaan loo sheegay maalinta qiyaamada marka la tago inaan maxaan ku raad meesha qiyaamaha xisaab ay jirto oo accountability baa jirta accountability-gaana waxay tahay waa la isla xisaabtamaya maxaa kamid ah war caafimaadkan ku siiyay maxaad ku qabatay caafimaadkan ku siiyay ka soo qaad qof baa caafimaadka Allah subhanahu wa ta'ala uu siiyay inta uu dhaqankiisa waxa uu la sameeyo behavior problems uu la imaanayo haday noqoto wuxuu cuni lahaa haday noqoto wuxuu galmoon lahaa haday noqoto wuxuu sameyn lahaa inta uu meel mariyo jidkii loogu talagalay ayaa haddana waxa ka xasilmaya meeshaasi marka caafimaad darro taasoo qofka marka cibaadadiisa iyo noloshiisa dambe affect ku yeelata marka taan oo kale marka qiyaamuhu Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo sheegay nabigeena
in maxaan ku radaa ay ka mid tahay waxyaalaha ugu horeeya la isweydiinayo caafimaadka marka waxaan uga dan leeyahay marka qof kasto waa inay ogaataa maxaa yeelay marka talo caafimaad lagu siiyo ama qofka uu maxaan ku radaa aqoonta u leeyahay uu ku sheego waxana ka ratimayo oo ka iman karaysa haddii sidaa u qaadan weysaa waxay noqonaysaa oo ay ka dhacdo maxaan ku radaa noloshii wixii lagaaga digay ay timaado hadde ma aqaan meel loo raacanayo ma jahli baad sheeganaysaa oo maalin kasta ma jahli baad taagnaan oo ma ogeyn iyo la ima sheegin iyo la ima qorin iyo la ima aqrin iyo aqoon uma lahayn dhaqankayga ma ahayn taa ma jirto wax kastaaba waxay leeyahay dad baa nolosha hortaada soo bartay islaamku ama maxaan ku radaa islaamku uu noo sheegay aqoontu ama xigmada waa daalla ka maqan qofka mu'minka ah meeshii uu ka helno uu ka qaadanaya haddii qof cadaan ah oo Mareykan uu ku sheega wax dantaada ku jirto sida ay tahay inuu qaadatay noqonaysa marka inta laga soo gudbo sababta nolol leeyahay caafimaadka hala dhowro maxay tahay oo muhiimada gaarka loo siinayaa maxay tahay sababta aan isleeyahay waxay tahay caafimaadka hadda la'aantii maxaan ku radaa wax soconaya ma jiraan kow marka ugu horeysa Allah subhanahu wa ta'ala sida culimada inoo sheegeen abuuritaankii bini'aadamka ka soo qaado iyadoo makhluuq uu jiro Allah subhanahu wa ta'ala aan caasinayn oo malaa'ig ah oo markastaba diyaar u ah inay Allah subhanahu wa ta'ala u hoggaansamaan iyadoo makhluuq kale uu jiro oo maxaan ku radaa animals iyo bahaa'im ah oo aan maxaan ku radaa aqli lahayn laakiin shahwaad leh iyadoo ay jiraan maxaan ku radaa jamaadaad iyo waxyaalo maxaan ku radaa aan naf lahayn oo non living things ah ayuu Allah subhanahu wa ta'ala garasho iyo aqoon iyo xikmadii asagu ka wataba wuxuu go'aansaday inuu aadam Allah subhanahu wa ta'ala u abuuro آيات كان الله وشيء علماء كداشة سيد الله أبوري الله سبحانه وتعالى مركو عرّا وشيء كعنت إذا كو أبوري قاب كو أبوري مثالها مركز سوق آيات دانا وكله سورة التين كترتا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وكله وحلقا أبوري شكل إيقابك هو نفسنا وحلو أبوري لها الله سبحانه وتعالى عالم كان أبوري بأنه هو شيء marka hadaad fiiriso qaabka binaadamka loo abuuray maskaxdiisa kore lugihiisa hoose qeybaha iyo ubucdiisa iyo waxa ka buuxa intaas oo organisa unugyada uu ka sameeysan yahay sida ay soo shaqeynayaan nidaamka waxa uu malaysaa wax lagu qiyaasi karayo ee binaadamka ilaa iyo boqolaal sano ilaa ay kumaan kun sano ilaa hadda wali ay tajiib ay maalinba wax baranayaan saasa laga abuuray marka Allah subhanahu wa ta'ala sida ku abuuray kuma abuuray marka ciyaar iyo iska yeel iyo nooc kale oo maxaan ku radaa creation ah iska sameeysa ma aheena waxay ahayd istiqlaaf iyo isticmaar dadku kan inay degaan dhulka kan oo ay khalifa u noqdaan oo ay camiraan degaan isticmaalaan waxa Allah subhanahu wa ta'ala ugu diyaariyay haday noqon lahayd caamtii Allah subhanahu wa ta'ala ugu dhigay haday noqon lahayd jamaadaadkii iyo khayraadkii ka buuxay dhulka kan haday noqon lahayd sida loo noolaaday iyo sida khaliifada loo hogaamiyo ay u jiraan oo u noqdaan dad maxalli jira oo waara oo ilaa ay laga gaaro saacad markay ugu timaado maxaa yeelay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wardadii hoo waxa idin ka abuuray arladan idin ka abuuray ana idin abuuray ciidaas idin ka abuuray ciidan waa u noqonaysaan sababta aan idin abuurana waxay tahay inaad camirtaan dhulka kan oo aad noqotaan dad jira oo hoggaan leh oo maskaxdooda maxaa yeelay Allah markuu ka hadlayo aayaad fara badan waxa arintan garan karay dad aqli u saaxiiba waxa garan karay wadadku miyaysan fikireen dad fikiraya garanaya dad aqli leh baa garanaya dad tadabburaya garanaya waxa soo radhay waxa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu garanayaa wixii uu abuuray bini'aadamka iyo quality ay lahaayeen iyo sida uu fikirayeen iyo sida ay wax awoodi karayaan marka bini'aadamka noocaas ah ee maxaan ku radaa ilaa iyo buuraha ilaa iyo badaha gudahooda ilaa iyo xidigaha isku dayay inay dhaafaan dadka noocaas ah weeyaan waxaan ka hadlaynaa ee loogu talagalay in caalamkan degaan oo ay ka faa'iideystaan oo ayagoo u hoggaansan Allah subhanahu wa ta'ala amaawiirtiisii maxaa yeelay waxaan loo abuuray anaga iyo jinkaba in aynu alla caabudno marka cibaadadaasi waxay u baahan tahay caafimaad tusaalahaan waxyaalaha qaarkood ee shuruudaha u ah qofka inuu islaamo ee qofku waa inuu horta mumayyiz yahay oo maxaan ku wax garanayo aqal leeyahay qofku haduu mentally oo caafimaadkiisa maskaxiyan aanu jirin oo qofku uu waalayahay marka uu noqonayo waa qalinka laga dul qaaday ee waxba loo qaaday laakiin waxaanu ka hadlaynaa qof ku dhashay ee caafimaad qaba haday noqon lahayd maskaxiyan haday noqon lahayd jirkiisa oo Allah subhanahu wa ta'ala uu nimcadaas ku manaysay dabadeedna marka inuu caafimaadkiisa
dhowro si uu u hanto cibaadadii iyo adoonnimadii loogu talagalay ee loo keenay maxaan ku radaa adduunka kan waxaa jirta marka oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay oo kale in qofka uu qawi ahaado oo uu maxaan ku radaa hadday noqon lahayd qawi fil jism hadday noqon lahayd caqli inuu qofka uu strong noqdo oo uu jiro oo joogo oo maxaan ku radaa maskaxdiisa iyo caqligiisa ay wada shaqeeyaan oo markastaaba uu taasa qofkaas ka wanaagsan baa leeyahay oo Allah subhanahu wa ta'ala uu ka jecel badan yahay mu'minka kale daciifka ah in kasto Allah subhanahu wa ta'ala uu mu'miniinta wada uu wada jecel yahay oo dhamaantood wada qeyr badan yihiin hadda se laakiin midka qawiga ah ee caafimaadka iyo maskaxiyan iimaankiisu qawiga yahay waxyaalo badan baa soo galay marka waxa soo dhan Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu noo sheegayaa in uu maxal jiray mu'minka qawiga uu aad ka jecel badan yahay ka kale ee daciifka ah waxaan uga jeedaa marka maxaa naga quseeya marka adigoo maanta caafimaad qaba qofka ceeb male qofka hadii uu dhibaato ku dhashaa oo maxaan ku radaa ama wali ama maxaan ku wax lamid ah ama curyaanimo taasi Allah subhanahu wa ta'ala baa u qadaray laakiin se qofka maxaan ku radaa isagoo buuxa ku koray maanta ay kala ka soo qaadaba jirba waxa laga qabanay waxyaalaha qaarkood oo cunadii uu cuni lahaa iyo dabeecadii qaarkood uu sameyn lahaa iyo waxyaalaha badan oo maxaan ku radaa oo behavioral problems ah dabadeedna la yaqaan la garanayo maxaan ku radaa waxa ka ratimaya hadii sida jidka uu sii hayo marka arintaasi oo kale dhacda maxay noqon marka caafimaadku waa wax muhiim ah oo aan la dayalsan karayn suuragal ma ahan wax la ogolaan karayna ma ahan qof muslim ah inuu naftiisa u horseedo wax naftiisa u keenay karaya xanuun bukaan jiro noocay ahaataba qofka uma banaana inuu naftiisa u horseedo tusaalahan maxaa soo galaya qofka waa sigaar buu cabaya qamri buu cabaya waxyaalo badan buu sameynaya oo Allah subhanahu wa ta'ala naga maanacay waxyaalo kale oo maxaan raad tiro badan oo la yaqaan meel ay ku horseedayaan waxa soo idilay hadii lagu sheego watan laga leeyahay dadkeena muslimiinta gaar ahaan dadkeena Soomaaliga war waxa kan hadii lagu sheego ka soo qaad waxaan iyo waxaan cholesterol-kaaga ayaa sidaan hadda waxa halkaagu waxa weeyaan waa sida hadii aadan jidka ku sii haysana waxay noqonaysaa markaas qofka ficilkiisa wuxuu noqonaysaa sheekada igala tag anigu ay sheegay waxa soo kale marka waxyaalaha dhibka badan ee runtii aan la garanin meelay markaas wuxuu soo adeegsanayaa qadar wuxuu anigu hadii waa la gar Allah subhanahu wa ta'ala ii qadari maalinta aan dhimanayo taacana kama hormarayo waa run laakiin meesha uu adeegsanaysa ma aqaan meeshii ku haboonay ay tahay signaiska iyo cibaadada maxaa kala haysta qofka marka xanuunsado cibaadada Allah subhanahu wa ta'ala uu kugu talagalay ee haday ahaan lahayd maxaa la dhihi jiray salaadihii haday ahaan lahayd soonkii haday ahaan lahayd xajkii wixii Allah subhanahu wa ta'ala jihaadkii oo kala ka soo qaad oo islaamku ku tilmaamay dirwatu sinaan oo maxaan ku radaa meesha ugu sareysa ee la yaqaan martabada islaamku ka taagan yahay jihaadka kale ninkaagan bukoonaya ee ay dhici karayso inuu asaga qayb ka ahaa maxaan ku radaa wax uu la xanuunsadayba marka sideeba jihaad uga qayb qaadanaysa haduu ahaan lahaa min nafsiya iyo hadii uu ahaan lahaa islaamku lagu difaacaba marka waxa weeyaan dhibaatooyinka jira waxa weeyaan cibaadadii Allah subhanahu wa ta'ala uu sameyn lahayd baa ka gaabinaysa lagu cudur daaraya because of adiga waxaad farahaaga ku keensatay tusaalahan ramadaantii oo kale ka soo qaad hadii aadan jirkii Allah subhanahu wa ta'ala uu ku siiyay aadan teeker garayn waxay noqonaysaa inaad bukootaa hadaa bukootin hada waxay noqonaysaa in marka cudurdaar baabul cudurdaar lagu raadiyo oo marka waxay noqonaysaa ama maxaa la dhihi jiray saas oo kale marka muhiimadeedu waxay tahay dadka gaarka ah aan u danaynayaa waxay yihiin dad waxa jira maantay caafimaad Allah subhanahu wa ta'ala uu siiyay ee hagaagsan ee laakiin se dhabaha hadda saaray maxaa kala lugta cagta saaray wado aan hagaagsanayn saalahan cuncunkaagi oo kala ka soo qaad cuncunkaaga hadaan hagaagsanayn aadan maxaa kala cidna aan waxba ka dhageysanayn dhakhtarkaaga aan ka dhageysanayn cidii kale maxaa kala aqoonta Allah subhanahu wa ta'ala uu siiyay aan ka dhageysanayn hadda ma garanayo meesha marka ay ku soo baxdo maxaa la dhihi jiray rasaltiga aad faraha la gashay waxay noqonaysaa tusaalahan xajkii oo kale xajka oo la taqaanaan oo maxaa la dhihi jiray meel socod iyo maxaan ku raahdaa hool badana oo halkan u dhawaafaysid halkan ka soconaysid waxaas oo dhan marka aad maxaa la dhihi jiray caafimaadkaaga aan hagaagsaneen waxay noqonaysaa in aad waxaas oo dhan aad qabtaay
taa macnaheedu maahan ugama jeedin cibaadada ay nusqaan noqonayso ama ajarkaagu nusqaan noqonay ugama jeedo oo baabkaas culimada ku shaqale anigu muhiimadda aan u dan leeyahay waxay tahay waxa weeyaan cibaadada lagu keenay caalamka kan caafimaadkuna waxa weeyaan waa wixii ku sahli lahaa inaad cibaadaysataa oo rabbiga Allah subhanahu wa ta'ala ku abuuray aad cibaadadii lagu talagalay aad ugu gudataa marka hadii aadan caafimaadkaaga aadan markiisii horeba aadan ka maxaa ka maintain gareyn jahli baa jiray lagu jahli bixiyay lagu sheeg meelo badan lagaaga soo diray brochure lagu sheeg meelo badan wax ka akhri wax samee dhici karta inaad jahli ka tahay laakiin ala kulli xal ka soo qaad caawad maqashaba wali maxaan ku radaa isbedel ma jiraba marka waxay noqonaysaa marka waxaan anigu kulay u saaray culimada go'aanka gaari karaysa aayada Allah subhanahu wa ta'ala hor u sheegay ay ahayd in qofka uu naftiisa halaag gacmihiisa u geysanayo oo ah in qofka uu naftiisa u tiro loo baahan yahay si maxaan ku radaa marka qofka buka wax weeyaan Allah subhanahu wa ta'ala nabigiisa uu ka hadlay qofka muuminka markastaaba xalkiisu waa wanaag hadii uu caafimaad qabo oo uu Allah subhanahu wa ta'ala oo uu maxaan ku radaa uu ku mahadiyo u shukriyo وفي حديث كما قررنا إنسان مسلم وريي هذا وحول له وناجدي هذه الله امتحانه أو دبعته كتيماده أو عاف ما دره لنا أو صدا قسم رنا محاكرة إذا وناجد ولا تاك ما هلا مركا وقف محو حنصدي أو هذا حنصدي شيء كذا يدمع لكن واحد تاي ورسده وحكى الله رستاج كريا إسلامكم مركا في رسيد تربيشن كأد بوغهلي وأنت إنسان دعين بالغهلي tusaalahaan qamriga oo kale marka laga hadlayo Allah subhanahu wa ta'ala wuu garanayay wuuna garanayaa mar kastaaba in hadii jidka la maro iyadoo mar laga hadlayo yiri nafci yar bay leedahay laakiin khasaareeda ka badan dabadeedna maxaa kala go'aanka laga gaaray waad garanaysaa talaabo kasta soo qaado marka guideline-ka noocaas oo kale ayuu Allah subhanahu wa ta'ala ku jeexay oo kitaabkaaga ku qoran laakiin saadigu kitaabku waa taqaanaa sida loo xifdiyo ama waa taqaanaa sida loo tafsiiriyo at the same time ma aqaan waxyaalo badan baan maxaa kala isqabanay oo maxaa yeelay islaamku marka qaarkood wuxuu xambaarsan yahay maxaa kala fariimo korid ah oo maxaa kala u baahan in cilmi kale iyo daqiiq kale uu qofku u dhaafo marka arinta noocaas oo kale ayaa runtii aan jeclaystay inaan idin la wadaago waxa dhacaysa marka qofku mar hadii uu xanuunsado samirka iyo dulqaadka iyo inuu qofka uu maxaa la dhigi jiray waa muhiim oo maxaa yeelay wax weeyaan hadda meel loo baxsanayo male waa ajir baad ku helaysaa marka aad maxaa la dhigi jiray aad dulqaadataa waxaa dhacday nabigeennii waqtigiisii calayhi salaatu wasalaam in ay naag u timid naagtaasina waxay tiri haddee waan suuxaa waana dharka iga qaadna ee waxaan doonayaa inaa ii ducaysaa markaasuu nabigu wuxuu ku yiri hadii aad doonaysidna hadda waa maxaan ku rabad ku sabri oo Allah subhanahu wa ta'ala jannuu maxaan ku saad ku mutaysan hadaa doontina waa ku duceynaya oo Allah subhanahu wa ta'ala uu ku caafin marka arintii bay gabadhii qaadan weydo waxay tiri jannaan doonayaa sideedan waa isaga jirayaa laakiin si hal bay codsatay waxay tiri waan sabrayaa nabi Allah waxa jirta hal cilad oo dharkiiba maxaan ku rabaa waa kashifmaa oo maxaan ku rabaa waxaan doonayaa arintaas Allah subhanahu wa ta'ala inuu dharkaygu asturo Allah subhanahu wa ta'ala rasuulkii wuu duceeyo marka kadibna maxaa kala sidaas u suuro gashay marka arinta waxaan u diliishanayaa oo aan u soo qaatay waxay tahay iyaas maanta hadaad kaadiso koreeyo kugu dhacdayba marka waxay noqonaysaa waxaanu taaganahay marka wayba dhacdayba oo kaasoo katiba ku haysa maanta dadkeena qaarkood baa hadana inta waxay sameeyaan negligence iyo dayac xumi iyo maxaan kala waxyaalo badan oo runtii aad isleedahay maxay u sameeyaan naftooda saa ugu gelayaan oo qofkii wixii loogu talagalay ma sameeynayo dawadii haday dawaahayd ma qaadanayo cunadii ma qaadanayo hadii maxaan ku raadin physical activity wixii loogu talagalay inuu marka uu sameeyo si uu caafimaadkiisa iyo noloshiisa u sii jirtaa ma sameeynayo ma garanayo marka wuxuu saa u yeelayo gaar ahaan dadka iyaga Soomaaliga madax adeega noocaas oo kale ayaa wuxuu ka yahay wax dominant ah oo maxaan ku cid kasta baad awreystid dhici karta mashaakil in laga helo marka waxaan ku soo qatimayaa haduu Allah idmo waxa jirta qofka hadii uu xanuunsado nin xadiis noocan oo kala waxaan jeclaystay runtii oo badan ama sheekadu mar kastaba soo maxaan ku soo urursanayso ah in aan maxal lii jiray aan caafimaad helo oo aan jirkayga oo iibad qabaa
ayaan ka jecel badanahay aniga inta la imtixaani lahaa oo aan bukoon lahaa oo aan sabri lahaa marka qaarkood dadku waxay leeyahay yaas waaba rabaa sokorta tay wada ilaahay baa imtixaanaya imtixaanka jawi iyo waxa dambi dhaaf ma keenaya oo si qaldan aasleeya waa loo isticmaalaya markaana yaas dambi dhaaf waad ka helaysaa laakiin si ujeedada sidaas baa inaad xanuunsidida adduunka u timid baadisaada adigu qorshaha wuxuu yahay in Allah subhanahu wa ta'ala uu ku bukeeyo oo aad buktaa oo aad xanuunsataa oo shaqeen weyda oo cibaadaysan weyda miyaabo shaqo ka dhigatay lian ina aan maxaan ku raada caafimaad helo oo boqolkiiba boqol caafimaadkaygu ii ahaado oo aan Allah subhanahu wa ta'ala ku shukriyo oo asaga ku sabro ayaa ii wanaagsan baa maxaan ku raada la yiri markaas nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu yirisna ورسول الله يحب معك العافية رسولك الله ولا كلكم يتيسداسي كليغا ما هنا رنتن رسولك الله صدا كلا قبا إن عافمات قبتid oo jirkaaga uu ku caafimaad qabo oo aad maxal dhihi jiray sidaas aad Allah subhanahu wa ta'ala ugu shukrisaa oo aad sida ku ajir gurubsataaba kaaga wanaagsan inta lagu imtixaani lahaa oo aad bukoon lahayd oo aad sabri lahayd ajir si aad ku heleyd waxa kaaga wanaagsan in aad maxal dhihi jiray aad marka hore ku soo hormarto caafimaadka oo caafimaadkaaga si aad ku manteen garaysto oo sida aad ku hagaagtid waxaan ku soo qatimayaa prevention waxa loo yaqaan al-wiqayatu khayru min al-ilaaj waa very important in qofka uu ka hortago dhibaatooyinka ku imaan waxay tahay waa laf dhabarka arinta tan islaamkuna aad iyo aad buu uga digay nabigeena kaleeyhi salaatu wasalaam waa uu ka hadlay fariintii Allah subhanahu wa ta'ala uu soo dhiibana waxay ahayd in laga hortago intaysan waxba imaan hadday ahaan lahayd caafimaad darro hadday ahaan lahayd waxyaalo badan oo maxaan ku raad dadku ay la yimaadaan Allah subhanahu wa ta'ala bini'aadamka abuurna sidaas uu maxaan ku raad message-kaas uu inoo soo firay kitaabkiina loo soo dhigay aan maalin kasta akhrinaana sidaas uu maxaan ku raad wax kastaaba oo dhibaato ka xasilmaysa looga digay in aanan sameynba bini'aadam baynu nahay waan sameyn oo dadkan maxaan ku raad dabeecadooda iyo maxaan ku raad behavior-ka ay leeyihiin baa sidaas ah marka waxay noqonaysaa marka wax suuragal ma yaha lagu mana ogola qof kasto muslima waa ku soo celinaya inuu naftiisa iyo nafteeda in ay u horseedo wax dhibaato u keeni karaya meel kala laga yaabo qamri inaad ka fikiraysid waxyaalo kale oo waaweyn cunada aad cunaysid tusaalahaan haddii Allah subhanahu wa ta'ala suu kugu sheegay ahayd cuna oo xalaal ah tayiban baa la raaciyay wanaagsan tayibkaasi marka dadka qaar kood aqoontu ay ka hadlayaan waxay sheegayaan waa wax nafta u hagaagsan waa maxay kasoo qaad haddii waxaad cunaysaa uu ka ratibmayo in wadna xanuunka ugu dhaco waxaad sameynaysaa haddii ay dhici karto inuu kansarkaaga xasilo waxaad sameynaysaa waxaas oo dhan waa in aqoon bay u baahan tahay haddii aadan adigu aqoon u leeyahay cidda aqoontu leh weydiiso waana sida islaamku ku qoran hadaadan ogeyn ogow cidda og wax weydii marka qofna ma ogeyn la yima sheegin ma maqal lagu cudurdaar ma noqonayso suuragal ma aha in qof muslim ah suuragal ma aha qof Soomaali ah in uu naftiisa u horseedo dhibaato ku imaanaysa naftiisa dhaawac ku imaanaya naftiisa qofna halkan fadhiya ma ogolaanayo maanta wadada highway-ga ee 99ka oo 45 iyo ka badan lagu socon karayo in cunug yar uu meesha wadada cross gareeyo qofna maxaa ku aqligiisa ma siin karayo chances-ka uu qofka leeyahay inuu badbaado waayo waxa weeyaan arin riski ah uu qofka faraha la geliya cunuga yarka cid ay ahaataba marka maxaa diidaya marka aad faraha la gashid waxyaalo badan oo caafimaadkaaga shaqo ku leh cunadaadii waa kamid ah dhaqdhaqaaqaagii waa kamid ah waxyaalo badan oo maskaxdaadii waa kamid ah waxyaalo badan oo maxaa la dhihi jiray naftaadii maxaa kooda wanaajin lahaa baa kamid ah marka waxaan isleeyahay hadduu Allah idmo intaas ku soo qatimaya wixii su'aalana insha Allah wadi weydiin karaysaan haddaysan su'aal jirinna muhiimadda aan ugu talagalay caawa waxay ahayd in aan isla ogaano haddii aan ku saxsanahayna aad igu raacdaan haddii aan ku qaldanahay aayaadka iyo xadiista aan maxaa la dhihi jiray meelaysa ku habboonay aan dhigayna taas culimada ay nasaxaysaa iyo ciddii markaa iga aqoon roon laakiin se waxay ila qunnaatay dadka iyaga marka hore sheekadu waxa weeye dood kasta ama aqoon kasta ama wacyigelin kasta waxay faraha la gelaysaa qadar waxay faraha la gelaysaa waxyaalo badan oo negligence ah
marka qofkiina waa qof markasta tukanaya oo Allah subhanahu wa ta'ala diyaar ah inuu caabudo oo diyaar waa inuu wax sameeyo at the same time maxaan ku radaa wixii baa wax isdiiday agteeda ka noqon weeyay marka si baabka uu dhinaciga dhaco ayaa waxa barnaamijka ugu talagalay caafimaadka 101 in Islam ayaan jeclahay inaan inta ku soo gabagabeeyo wixii su'aalahana way furan yihiin waqtigana waxaan u maleynayaa in maqashii soo dhaweeyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh جزاه الله خير الأخ محمد الله نسيو إن شاء الله قم في سؤال قبل إن شاء الله مرفوض قالوا كذا any questions السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وما حي كوليسترولكو maxaa se hadduu qofka ku dhaco ay risk uu yahay ama lagu daawan karaa bismillah sida aan ku sheegay qaybtii ugu horeysay ama waxaan u maleynayaa slide-kii ugu horreeyay inuu ahaa markaan afeefanayay cilmigu waa isku dhexyaac ma ahan oo qof waliba takhasus gaara buu leeyahay wax baan kaaga bidhaamin karaa su-aashaada jawaabteeda laakiin ma noqonayso maxaan ku rahaa jawaabtii ugu dambeysay aan bixin lahaa ama cid iga aqoon ay bixin lahayd markaan isku soo duubo waxaan kuu siinayaa as a public health perspective anigu takhasuskaygu dhakhtar ma aha oo dhakhtarku haddii aan macnaa kolley idana waxay u baahan tahay topic kale oo u baahan in la kala caddeeyo xirfaduhu waxay isugu jiraan mid caafimaadka ijtimaaciga ah oo caafimaadka guud tusaale ahaan tababarkaygu waxa weeyaan sida cabdiraxmaan uu sheegay global health ama maxaa la dhihi jiray caafimaadka guud deegaan degmo wadan king county oo kale ku nool 100 maxaan ku milyanka ay barka ahaa ama qayb markaa ku takhasustay oo ka soo qaad shaqadeedu ay tahay caafimaadka beerka oo kale ee kan Washington State waxyaalo noocaas kale ah iyo maxaan ku radaa qofka public health ku qabanaya marka si aan wax kaaga bidhaamiyo cholesterol inkastoo Dr. Muumin iyo dhakhaatiir kale iyo aad maxaan ku radaa arintaas aad u baahanaysiin aad dib u sii raacdid cholesterolka iyo waxa naga quseeya ee caawa maxaan ku radaa aad u baahanahay qof kasta inuu ogaado waxay tahay cholesterol waa dux ama dufan jirkaygu u baahan yahay oo beerka uu sameeyo oo waxyaabo badan oo jirku u baahan yahay ayay maxaa la dhihi jiray qayb ka tahay marka cholesterolka noocaas ahaa ayaa waxaa jirta noocyo kala duwan bay leedahay waa lipoproteins mid baa la yiraahdaa HDL oo high lipoprotein loo yaqaano mid baa jirta low density maxaa ku lipoprotein oo hoose midna waa total cholesterol ama total fat wax noocaas oo kale ah oo jirkeena ku wada jira marka arintaas oo kale macna marka laga hadlayo cholesterolka iyo waxyaalaha aad loogu sii fogaan karaa marka jawaabtu waxaan ku siinayaa waxay tahay yes cholesterol waa wax jirka u baahan yahay oo aan laga maarmayn laakiin cholesterolka lagu sheegay ee jirkaaga aan u baahnayn ee wadnahaaga aan jeclayn inuu si hayo ee dhibaatada ku keenaysa ee wadna xanuun ku keenaysa qof dadka badankood stroke iyo wadna xanuun u keenta waxay tahay waxa loo yaqaan cholesterolka ka yimaada animal fats oo dadka aad u jecel yihiin ay oo dhaqanka iyaga ah hilib arigaan cunaa haddana geel bay ku darsadeen waxyaalo badan oo maxaan ku radaa animal fatka oo beefku uu ku jiro marka red meat kaas waxa loo yaqaan hilibka gaduudan waxa la socota xeer dixda la socota waxay wadataa waxa loo yaqaan saturated fat dhergan ama dhergsan sida lagu sheegay dugsiga hoose ee sare saturated fat kaasi ayaa waxa ka buuxa marka waxa loo yaqaano low density cholesterol midan LDL ka loo yaqaano ee bad cholesterol ka marka waxay noqonaysaa qofka hadii uu ka dhigto maxaan ku radaa inuu cunadiisa uu saaba ay noqoto oo qofku uu joogtaysto oo uu ka hari waayo oo ciidana marka dhici karto qofku inuu dhaqan iyo uusan u lahaabo weligiisa wax kala haysan haddii taa ay tahay marka ma garanayo laakiin waxa aan rabo inaan qofka uga digaa waxay tahay
cunada cunaysa waxay ka timaadaa low cholesterol kaasi iyo fat kaasi dhamaantii wuxuu ka yimaadaa animal fat ka hilib ariga gaar ahaan geela lo'da ayuu ka yimaadaa chickenku wuu ku yar yahay hadii uu jiraan maxaa ku radaa marka laga saaro fatka yarka ee chickenku uu wato maxaa ku radaa waa zero fat marka ala kulli xaal cholesterolka noocaas qofka hadii uu badsado waxay noqonaysaa in jirkiisa ay ku badato haddii jirkiisa dhiigga ay ku badataana waxay noqonaysaa in xibnaha ama vesselska dhiigga qaada oo loo yaqaan maxaa ku radaa tubuska dhiigga uu maro siba kuwa wadnaha gaara in ay maxaa ku radaa marka tuubada biyuhu ay maraan waad garanaysaa sibay u daxalaysataa markay daxalaysato marmar baa waxaa dhacda oo dadaad aragtay in ay biyuhu meel ay maraan waayaan sababtoo awaamirta wixii dhanba waa xirmeen sidaas oo kale ayay maxaa ku radaa dhuumooyinka dhiigga qaada ayay maxaa cholesterolka uu dahaaraa oo waxa loo yaqaan black book sameeya uu madoobeeyaa dabadeedna hadii wixii ku bataan oo qofkii uu joogtaba caadadiisu ay tahay inuu san hilib ari iyo geel iyo lo iyo uusan ka kicinba oo markastaba waxa cunayo oo saadana maxaa u dheer tahay inuu physical activity jimicsigiisa jirkiisa aysan maxaa socod lahayn waxay noqonaysaa marka in ay dhuumahaasi ay naaro gano ay xirmaan dabadeedna uu markuu dhuumahaas ay xirmaan waxay noqonaysaa marka waa adiga tuba hadaa qabatid biyo ay ka socdeen marka aad ciijisa biyo pressure bay sameynayaan pressureka biyo ay sameynayaan marka waxay noqonaysaa qofka waxay ku keenaysaa cholesterolki waa koow oo wadnay dhibaato u keenaya dabadeedna waxa meesha ka dhashay tubadii xirantay pressureki wadnaha ay ku furtay iyana blood pressure baa ka imaanaya oo kale wixii dhan waa isku wataa marka cholesterolki blood pressureki iyo muxuu akii kale waxay dhanba marka waxay keenaysaa in wadnahaaga ay maxaa la dhihi jiray marka dambe ay dhulka soo dhiganto stroke u dhaco oo wadna xanuun u dhaco halkaana maxaa ku radaa meeshaan xirantay oo balaagarashatay in maxaa ku radaa qaliin malaayiin dollar ah aad mudatid waxaas oo dhan waxay ka imaan karaan as a public health perspective waxyaalo sahlan oo qofka uu avoid karo waa is avoidable sida ay maxaa ku radaa dadku sheegayaan oo dawladdu ay sheegayso waxyaalaha dadka iyagu ay aad ugu liitaan minority-ga ama Soomaalideena oo kale oo aan doonay dadku inay aad uga fahmaan waxay tahay war number yar baad ku joogtaa deegaanka kale dad waxa kugu hareeraysan malaayiin qof ah marka ma dhici karayso 10 years in 20 years in aad maxaa la dhihi jiray isbedelka noocaas oo kale uu yimaado haday dhacdana intii hasanayd baa yana jidkaasi maraysa waxaad arkaysaa qof baa maalin kasta beer u xanuunsanaya oo late stage la ogaanayo isagoo beerkii kansar kaga dhacay reerkii baa xeeb weeyaan lama sheegi karayo cid marti inay sheegto reerka dhan macal qabiilkoodii ba xataa ma raba inay sheegaan oo maxaa kale la maqlo barkay waxa lagu imtixaamay waxa la leeyahay reerkaasi nin kasar leh baa ka dhashay oo maxaa wax noocaas oo kale ku arkaan marka wax cusubna ma aha laakiin nasiib daradu waxay tahay qarniga kan aynu joogno iyo saacada aynu joogno ee 2013 ka baa waxaynu maraynaa wax dadku ay soo dhaafeen boqolaal sano la soo dhaafay marka taawiyada aan doonay dadku inay u baraarugaan cholesterolka ay sheegayso qofka wuxuu yana waxyaalo la iska ilaalin karayo oo laga hortagi karo ayuu ka xasilmaa taasana insha Allah loo baahan yahay dadku inay u baraarugaan ولا قهر يا سمع بسم الله محمد علي waxaan soo weynay dadka anaga wadanka ku cusub oo cuduradu u bateen waxa noo keenay oo cudurada dhalinaya inaan loo sheego koob ilaa wadanka waa cusub cudurkeena waa bataa tirmo taa hadda weli ma hayo أنا بس وحنا نتابع هي 6 أورو شيء واقبة سكر قبة بيكار قبة كوليسترول عليه وحنا كواي وده وده كان يقول بيه ما كان يتبع لي وده مركا حاجة جبنا حولها حتى ما كان يتكلم يقال اللي جرّه وأمريكا اللي جيو واحد يرد الطب يبدأ هو كذا واحد مطلع وأقول ما هذا marka aan waxaan leeyahay wadan aan aqoon artimaadeen cudurkaan halkaas u maartay inuu kaashanayo taxaab ka soo qaad anigu cudurkaan sheega qaba Soomaaliya dhakhtarku wuxuu ii jiray bacdan oo nuurada waxaan wada waayo wuxuu ila ka socota waxaan xabso
وضعك هذا تجي مشيكي سكرت الواقع وحبلها هي دي كان واقع وحين واقع بابه صباح لي تضوح فكرنيها لغاية تبيني تضوح الأفريق ما حب الله يفرق سرعة لك أنا محاق بقى عضو بها كان علي ليس أنا نبي يعود الكواب وكي يعملوا لي هاي أنكرين يقول لك الجري قلت كبر كان قاعد أنا هودي أنا قاعد أنتني فريش كأنا قاعد خلاص قال هذا الشيء مركا سؤال شيء وحيد مركا waxaa iska ilaalinayno oo dadka hore u deganaa meesha ay cudurkooda u yaraaday anagana cudurkeena u bantay yaa rabaa inaan noo sheegto assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله بسم الله su-aashaasi waxay ka turjumaysaa maxaa la dhihi jiray dareen guud oo ummadda ka jira oo ah in waddanka aanu nimid ay dhibaatada iyo cudurrada iyo wax kastoo aanu dhaxalnay isaga uu mas-uul ka yahay mar haddaa saa u sheegtid ama sidaa u sheegaya waa jiraan waxna waa ka jiraan laakiin waxaan rabaa inaan kala caddeeyo waxaad sheegtay blood pressure waxaad sheegtay kaadi sokor iyo waxaad sheegtay mid kaloo saddexaad cholesterol okay anigu waxaan qabaa ra'yi taa ka duwan oo laakiin wixii dhan way soo wada keenayaan waxaa jirta marka waddankaaga aad deganayd oo Soomaaliya ama Afrika meeshaan laga yimid waxyaalo badan oo runtii nolosheeda ka mid ahaa oo maanta aan runtii heli karayn ilaa lacag inaan bixinno mooyaane tusaale ahaan in idid uu ka yimaado ididka shakhsiyan idid imaatiga ma ahayn macnaa in physical activity waxa kan wax laga hadlayaa waa cilmi cilmigan ka hadlaya waxay tahay war waxa aad cuntaa qofka cunno la'aan ma noolaan karayo oo cunnadu waxay tahay maalinta markaad saa u soo baxayd ilaa iyo maalinta godka lagu dhigaa afkun baad wax marinaysaa waxaasina cunnada waxay ka samaysata wax loo yaqaan energy oo cunnadu ma ahan biyaha ayaan lahayn maxaa wax energy loo yaqaan marka tusaale ahaan waxaan rabaa inaan sheekada soo gaabiyo waxa weeyaan qofka bini'aadamka ah wax uu cunaa oo energy wax loo yaqaano ayaa gala oo uu maxaa tamarta jirkiisa gasha ee uu hawsha ku qabsado Soomaaliya markaa joogtay oo aan runtii arintaas waa arin runtii aan aad u danaynay sababtoo ah cilmi baaris gaar ah ku sameeyay waxa weeyaan waxa farqiga jira waxay tahay waddanku dhib kama lahe innaga waxaan nimid nolol runtii ka soo gudubtay boqolaal sano ka hor xaalad oo hadda maraysa xaalad kale waddan waxaa timid teknolojiyada ay horumartay qarnigii ugu dambeeyay kacaan warshado la dhahay yimid wax kasta fududaanay maalin aan ku dambaysa maalin kasta waxay sheekadu maraysay gawaaridaasi iyo wax kasta inaad maxaan kula fadhiga ku qabataa oo waddankii dhan baa dad saaha markaa soo qaatay waxa loo yaqaano bararka ama obesity-ga overweight-ka sokorta blood pressure-ka waxaasoo aad arkayso oo dhan 20-30 sano ugu dambeeyay yes waa triple wax loo yaqaano saddex laab bay samaysmeen taa macnaheedu maaha marka in maxaa la dhihi jiray waddanka uu cudur fadhiyo ee macnaheedu wuxuu noqonaysaa qofka adigoo kale ka soo qaad qof baa Soomaaliya ka yimid maalintuu imaanayay waa la soo baaray isagoo wuxuu yimid caata ah oo maxaan ku raad ma sha Allah wax kasta u yihiin laakiin markuu halkaa yimid ayuu maxaa la dhihi jiray waxa qofka ugu roon ee markiiba u bilaabay waxay tahay cunnadii had dhacdo maxaa ka daltabiyoodka sheegaysa maxaa lahaa qofka cunnada nooc maalmo kadib laakiin dabadeedna waxa dhacaysa inuu enjoy gareeyo oo ka faa'iideysto maxaa ka barwaaqada halkan taala waxaad ka imaanaysaa meel rootiga uu ahaa wax la xisaabiyo waxaad ka imaanaysaa meel qadadu ay ahayd saxan la isla sugo oo maxaan ku raahdaa duurkii familku dhan inay yimaadaan lagu qasbanaa waxaad ka imaanaysaa meel maalintii dhan dugsi u socotay iskuul u socotay maxaan ku raahdaa ari raacday geel raacday oo inta ka baxda energy ah iyo inta ku soo gasha ay aad u imbalance yihiin oo macna inta ka baxda badnay halkan baad imaanaysaa oo waxaan xasuusanayaa runtii qofka marka qaarkood rabo inuu ogaado reer baa dhici karaysa Soomaaliya joogo in ay doonaan in maxaan ku raad qof ay casumaan sheekh iyo labadiisa xer baa laga yaabaa inaad maanta quraan akhris ugu yeeratid dhici kartaba reerkaasi inay hal daqiiqo u qalaan oo ay maxaan ku raahdaa kiilo bariis u kariyaan
runtii waa la yaabaysaa maanta waxaad imaanaysaa kin kaana siyaaro waxaad dhici karaysaa in neefkaasi oo adigu aad cuntaa oo aadan maxaan ku rahdaa subaxiina ay ku dheertahay intaasoo energy ah hadday noqon lahayd ice cream hadday noqon lahayd intaasoo koog ah qofka koobka yaraa markuu cabo inta sokora ku jirta lama ixtimaali karo lama qiyaasi karayo marka waxa isbedelay wadanku ma ahane adigiiba waxa kugu dhacay waxaad ka timid meel waxa kugu yaraayeen wax kasta kugu yaraa you are undernourished in skinny baad ahayd maxaan ku radaa waa lagu cabiri jiray maxaan ku radaa dadka taajirka maxaan ku heli karin cayilaan dukaanlaha magaalada jooga ayaa maxaa awoodi karay inuu caloosha inta ka salaaxo kaasa wuxuu ahaa dadka dhan meesha u daawadaan oo ay noqdaan qof kastaba waa taajirkii magaalada oo awoodi karay inuu cunno saddex cunno helo oo uu maxaan ku cayilo halkaas si upside down bay noqotay upside down wuxuu noqotay faqiirkii baa wuxuu helayaa cunnada tii ugu raqiisnayd beegar baa laga yaabaa 99 cent inaad ku heshaa wax kasta maxaan ku upside down bay noqdeen taasoo ay ku dheertahay inaad jimicsataa in ay noqonayso in $50 ka badan ay ka baxdaa haddaad doonto inaad maxaan ku raadayay beerihii iyo maxaan ku raadayay jangalkii dhulkii aad mari jirtay ariga ku raaci jirtana haddaad doonto waa inaad gaaga qaadataa waxaasoo dhan oo aan waagii hore aan u haysanay for granted ayaa maanta maqnaaday marka maxaa soo baxaya marka maxsuulku wuxuu noqonayaa cun oo seexo ka waran waxay noqonaysaa inuu uslugayo gurigiisa iyo masjidka dhici kartaba dadka iyagu waxa laga kar laayahay soo baarkin garaysan maxaa la dhihi jiray meel 1 kilomitir ka fog masaajidka oo maxaa kara u soo lugay at least aad lumisidi maxaa ku radaa intaasoo kale ka baxdeen marka arintu waxa weeyaan waa arin u baahan discussion inta ka balaaran laakiin anigu waxaan qabaa yes markay cunnadaadii isbedeshay markuu dhaqdhaqaaqaagii isbedelay markay waxyaalo badan kugu soo kordhay yes cunnada wadanka la cunaa yes waxa weey waa high calorie bay leedahay oo aad bay maxaan ku radaa u energy badan tahay waan loogu talagala waa la farsameeyaa sababtoo ah cadiinka lagu badiyaa ama cusbada lagu badiyaa si ay dhadhan u yeelato dad dhan baa ka shaqeeya arrintaas marka dad waxaad u timid oo business minded ah isaga sameynaya adigu kuugu talagalay ee doona maxaan ku radaa masaakiinta inuu $1 uga gado isagu maxaa la dhihi jiray waxa weey wuxuu ku jira nolol kale cunadiisa waxa laga yaabaa inuu salar cuno adigu salarkii ma cuntid waxa laga yaabaa inuu maxaan ku radaa ay dheelitiran tahay waxa laga yaabaa inuu gym 4 saac ku jiro waxa laga yaabaa inaad ku qosashaa markuu wadada ordayo adigu si waxa dhan ma sameynaysa marka wadankuna ma yara oo masalan waxaasi waxa loo yaqaan waa systemka aynu soo dhaxgalnay oo runtii aan fidgareyn baahida aan qabnay laakiin at the same time waxa jira waxyaalo annaga shakhsiyan oo lafaha yaga aan u naxayn marka adigu naftaada u tiri weeyeen familkaaga naftooda u tiri waayaan hadda waa tan marka la doonayo dadku inay ogaadaan in aysan sahlanayn oo islaamikana aysan xaq ahayn dhici karta in lagu dambeeyo qofka inuu naftiisa u horseedo dhibaato iyo jab marka intaas aan ka dhigi lahaa yes maxaa keena waxa keena isbedelka dhacay ayaa keena ma qaano qayb taas ugu beensamaan hal su'aal أنا شاطر. جمع كرست هكذا كرتوية. أنا مقدار. إذا كرستور بالليل. هيلبك إذا كرستور بالليل. يا مقلي مركب. هيلبك إذا كل إنسان ملين أيه. وأنا بقول ما هي محمد food scientist mayhi oo cid kale ku shaqo leh inay ogaato wax kasto cunno jira haday noqon lahayd grains ama bariis iyo digir galay haday noqon lahayd hilbaha haday noqon lahayd kalluunka waxaas oo cid baa taqaana inta ku jirta dux inta ku jirta maxaa la dhigi jiray maxaan kora wax kasto ku jira marka laakiin sida aan malaynaayo haddii iduhu aysan ku jirin cholesterol ma garanayo meel kale ku jirayso waa malahayga waa dhici kartaa in maxaan ku raadaan ku qaldanahay laakiin se waxaan ku malaynayaa wankii buurnaa iyo biridiisii in aysan cholesterol ka maqnayn maxaa yeelay waxa laga hadlayo waa saturated fat haddii kolay dadka fatka iyo maxaan ku radaa iyo scientistiga ah ee arrintaa darsa waxay yidhaahdeen xaada waxa uu kala baxdaa mid cakiran oo maxaan ku radaa saturated ah oo haddii biyo lagu dhex rido degaysa iyo mid maxaan ku radaa oo maxaan ku radaa
sida olive oo kale oo monosaturated ah oo maxaa la dhihi jiray sababta oo olive oil-ka iyo coconut oil-ka wada saliidaha ka yimaada maxaa dhirta ay uga fiican yihiin kuwa kale animals ka yimaada marka anigu shakhsiyan waxaan sheegi lahaa saliid haddayba ka timi xayawaanadana kuwaanu dhaqanay aad ku jecelnahay looda geela ariga iyo idaha runtii faa'iido badan ma laha sababtaasina way dadka iyagu waxay la cimray iyo maxaa ku radaa iyo dhib badan yihiin oo gaajo iyo maxaa ku radaa cudurro badan yihiin sababtaas weeyaan sababta Japanese-ka iyo dadka kale ay nooga cimri dhaadheer yihiin way dhici karaysa in qof 100 iyo 120 sano u gaaro sababtoo ah dad fiiriso dadka Chinese-ka ah markaanu darseeno dadka caafimaadka adduunka waxa weeyaan cunada ay ku nool yihiin baa waxay tahay iyada dhan waxa loo yaqaan ama shrimp iyo waxa khayraadka badda oo runtii Ilaahay ugu galaystay oo xitaa waa waxa kaliya ee xitaa hadii meed lagu helo la cuni karayo diintu ay aad u support gareysay geelay dhaqanka aanu ka nimidna runtii anagu ma garanay intay qaadanayso in aanu ka faa'iideysano xoolaha Allah subhanahu wa ta'ala siiyay marka caafimaadka xaggaas ku jira labo waxaan dhihi lahaa maxaa la dhihi jiray dhirta beerahaas hadii aadan maxaan ku raadaa aadan baran sida loo cuno maxaan ku radaa fruits iyo vegetable-ka waa very important kuwaasina maxaa ka nafaqooda badan dhibaatadooda yar marka kuwa hala badsado ayaan ku talin lahaa halka maxaa la dhihi jiray ida iyo hilib ari iyo geel runtii fanaag badan ma ilaha hor waa u soo cunay nagu filan intaan ka soo cunay marka insha Allah jawaabteeda taas ku qabsan lahaa assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa insha Allah shukran wa takrana hasha su'aal ku soo qatimna محمد رضا قلنا عنده واحدة لما تودارين نسبة مركة وقع من الأسكار نسبة بالوقت لكن مرة يحكي إيمانية مرة يحكي إيمانية ممكن واحدة لما كانت بدلنا حد ولا تركان يوصل لا تعامل بدل هذا سنة على سنة سيدا هذا بعرف فرسالة هذا سوق هذا إنه حاجة وحي يقول لي سنة environment كدو environment كذا وراح كله iyo cunno fresh oo aan la kaydinin oo aan talaagad la gelin oo aan frozen noqonin inagu xagga ku khudaarta aan cunayna waxay ahayd khudaar natural ah oo aan fertilizer ah oo aan la bacrimin inagu khudaarteena maaha حاجة مركا كلوين كانوا هيسني هي عميرة كانوا هيسني مركا الإسبار برضو هل كان هي الأمية هل كان محمود من كنا الحجية ingredient الوجود وسيدي أي عين لسه أديت وحينهم من لو كلامته بيرو لبعض منها يوم سي أي أوكلان والعقل وقسم بيو أبوه فربنا أمام بيا فربنا هيقولنا إن هذا اللي يلعبون وحيقول من الحوار لقونا حين بيو هي دليل حتى لقونا هي بدوجو لقونا سيكون يشان ميزان هو يبصر مركب وحين وصل للدنيا ماي مايند يعني وصل ظروف تاسو مركب بعدما أقول مركا كنت تخصصتي وحوها علمي كان هديه تقسم كل جاي برشة بني آدم كأننا حتى تركن أظروف كأن الصومالي حان مركا عن الصومالي استاتيستيكال ذكر أنت يضع عفنا قطع هالكثير haddana halkaas uu ku sheegay iyagoo cudur qaba kan noqday markay carrada ku noqdeen haddana caafimaadeen waa tira badan xadooda marka in waxa meesha iyada ayaa la yahay wax saameyn kul cudurada waxa marka aan soo jeedin lahaa wada soo jeedin kaliya dadkiina cilmiyadaas iyada ku takhasusay cunooyinka ingredients oo keenayo faaka زيادة وضد ممكن أما عبيتانا ضد ممكن هي سقطة بدل يكون جدو وضد ممكن هي إنت دراسات تكسر ميسان ما قلنا ضد كبصوب التانسي أي مجرد دكتور هاي اللي له حخس كان مواليد ولذا كان قدر الإسكان كان متنوع بعض السوقات لو كان ورود روتيه دار حوجي
arrimahaas iyada ayaan soo jeedinaa inaad intaad diraasad ku samaysaan mataqaanaa muxuu aboonka aad ku jirtaan in culimooyinka noocaasay taha dadkanaga digniin aad ka siisaa kuwa lagama maarmaanka inay ka dirgoodaan ama ay ka fogaadaan oo u keeni kara jirkooda kordhigo sababtu waxaa weeye dadkeenu economicaale dad awoodi kara maaha hadda inay tagaan mataqaanaa meelaha physicalka lagu samayn kara oo ay lacag iska bixiyaan ma awoodi kara ama dhaqan ahaan baa laga yaabaaba inuu uga xishoonahayo muxuu ahay inuu sameeyo siyaabaha qaarkooda dadku ay u dhaqmahayaan marka bal arrintaas intaan anigu muxuu ahay yaa soo jeedin insha allah